waa murti macna xeel dheer iyo ujeedda leh milgadii afka hooyiyo muraayadii sooyaalkeeda maanta waxaan ku bilaabayaa su'aal aad muhiim u ah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan ku bilaabayaa aad muhiim u ah waa maxay mahmaah soo koobaya marka mahmaah waa murti waa hadal xikmad hadda xikmad waliba mahmaah maaha murti walba mahmaah maaha laakiin mahmaahi waa murti mahmaah waliba waa murti waa hadal xikmad macna xeel dheer iyo ujeedda leh waa hawraar kooban macnaha ay xambaarsan tahayna ka weyn tilmaanta ay bixinaysana ka ballaaran waqtiyada iyo xilliye la adeegsan kara xilligana lagu dabaqi kara marba casriga la joogo macna xeel dheer iyo ujeedda leh waa milgadii afka hooyiyo waa dhadhanka macaansiga qiimaha iyo macnaha sharafta laga dheehan karo ummaddaasi xigmadda ay leedahay iyo inay ummad xigmad hodan ku ah ay tahay waa milgadii afka hooyiyo waa milgo uu af leeyahay af waliba mahmaahyadiisa laga ogaanayaa inay u tahay milgada afkaasi uu leeyahay waa milgadii afka hooyiyo muraayadii sooyaalkeeda muraayadda sooyaalka ummaddaasi ay leedahay laga akhrisan karo laga fiirsan karo waa mahmaahda maxay ku tahay ummadda taariikhay soo martaa wakhti waayihii soo maray waxaa laga dhex fiirin karaa isbeddello iyo xadaarado kala gedisan iyo wakhtiyo kala gedisan mahmaahyadii ka abuurmay intaa waan fahamnay taariikhdeeda laga arkayaa marka isbeddelladii wixii ay soo martay iyo ummadda dhaqankii ay wakhtiyo kala duwan soo gashay muraayadii sooyaalkeeda maanta marka anigu waxaan idiin hayaa mahmaah macna xeel dheer iyo ujeedda leh ayaan maanta idiin hayaa intaana u gudbin mahmaahdan maanta idiin hayo waxaan ku kobcinayaa markaan u soo noqdo waa maxay mahmaah waa maxay mahmaah mahmaahdu waxay kaga duwan tahay xigmadaha kaloo dhan in mahmaahda ciddii hal abuurtay ama maalintii ay mahmaahdaasi baxday golihii ay ka dhalatay ama madasha markaa halqabsiga ay ku timid loo soo qaatay lama yaqaano waa intooda badan lama yaqaano wakhtigii laakiin waxaa laga dheehan karaa in ummaddaasi waaye soo maray ay meeshu ka muuqato lama yaqaano tusaale haddaan soo qaato xigmad baa jirto hebel baa hadal xigmeedkaas uu ka sugnaaday magaciisii baa ku saxiixan ama gabay uu tiriyey baa laga soo xigtay magacii baa ku saxiixan waa murti mar dambe hadalkii dadkii ayaa qaato way noqon kartaa mahmaah xitaa way muddo kadib markay soo noqnoqoto wakhtiyo kala gedisan ujeedooyin kala gedisan iyo casri kale cusub lagu dabaqo way noqon kartaa iyadii xitaa mahmaah murti abuurantay way noqon kartaa mahmaah laakiin inta badan mahmaahdu lama yaqaano ciddii samaysay marka mahmaahi waa murti intaasaan maanta uga tegayaa mahmaahdan maanta idiin hayo waa mahmaahad way taqaanaan inta badan aad maqasheen xigmad cajiiba xambaarsan hadal xigmeedkan xigmad cajiiba u fiirsada qool xaq sariig ma leh qool xaq sariig ma leh yacni qowlka xaqa ah cidna loogama xishoonayo oo looguma aabba yeelayo lama dhahayo hebel madaxa loo weyneeyo oo yaan la dhihin hadalkaas yaan runta loo sheegin yaan macnaheeda qofka darajaduu doonto ha haayo mustawuhuu doono ummadda ha ka joogo boqor ha ahaado madaxweyne ha ahaado waa in xaqa loo dardaarmi karaa runta loo sheegi karaa qool xaq sariig ma leh qool xaq cidna loogama xishoonayo waa loo sheegayaa dhab laakiin akhlaaqiyaad baa jiroo lagu sheego nidaam mustawaha qofka uu joogo iyo darajada uu haayo intuu qofkaas wax loo sheegi karo waa in habkeeda loo marsiiyo fariinta loo gudbinayo iyo xaqa qofka loo sheegayo waa in loo sheego
oo akhlaaq ay ku salaysan tahay oo meel ka dhacno qofka lagu sameeyay laakiin looguma aabiyelay waa loo sheegay runta waxa muhiim ah marka hebel lama hadli karo sidee waxaas loogu sheegaa sidee loo sixi karaa qofkan maya laga gaabsado xoogaan iyo anigu kuma waxaas ma jiro qofka tusaale haddaan soo qaadano maanta madal Soomaali ay fadhido ayaa qof Soomaalinimada islaamnimada meel uga dhacay ama intaasba aan u aabayeelin danti guud aan waxba ka galaynin tusaale u soo qaadanaya arrintaas ka fog cadaalad dhaqan aan ayaha ummadana dan u ahayn yani meel lagu qaatamo le qofkaas waa inaad u sheegi kartaa tiraahdaa oo tartiib سامها سانا دن ما صوت هداد كأمستو حقا الدردار مويدو فدنا إيمان كرتا ومدى لغو امتحان صوت حقا يولا دردار مويدو فدنوينكي مصيبة دي كدش كدش فدنوينكي كدش مصيبة دي أيانا لغو امتحان يا مانتا مركا قفوا إن أدو أخلاقيات صومالي نما إسلام نما كسالين آيا الحقا وشيغي كرتا وحان مانتا إذي كغتغيا حكمدان عجيبكا معناها حيل دير iyo miisaanka culus xambaarsan ranaysa qool xaq sariig male والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته